waxaa laga yaabaa qiyaamihii lasoo dhaafay inaad ka mid tahay dadyoga isweydiinayay muxuu kor ugu kacay qiimaha shidaalku maadaama shidaalka ay kaalmaha shidaalku ka haybanayaan uu yahay shidaalka ay hore u haysteen ka hor intaana dagaalada barigan xidheen tusaale ahaan aan dhahno seelada xoolaha haddii maalinta ay xooleymo waayaan waxa kor u kaca qiimaha xoolaha maalinta suuqa jooga sababtaa xoolo kale ma jiraan saliiduna amaba shidaalkuna waa sidoo kale haddii wadamada shidaalka soo saara qaarkood ay suuqa saliid soo geli waayaan inta suuqa taala way qaali garooda soo haddaba sidee macquul ku tahay shidaalka qaali garooba waa ka hadda kii hore ee wadanka hore u yaalay muxuu qaali garooba sababtu waxay tahay qiimaha shidaalka waxa saameeya qiimaha uu caalamka maanta uu ka marayo haddii shidaalku caalamka kor uga kaco waxa sidoo kale kor u kacaya qiimaha aad ka bixisid shidaalka maalintaasi sababtoo ah shirkadani waxay ku fikiraysaa beritoole shidaalkan maxaad kusoo bedeli lahayd haddii markaa sablayga suuqa yaala uu yaraado waxay taasi keenaysaa in dhimaandigu bato oo baahida loo qabo shidaalkana ay badato taasina waxay keenaysaa in qiimihii kor u kaco tusaale aan dhaho kaana shida ayaa waxay dalbatay 100 foosto oo shidaala 100 foosto wuxuu ku taliyay $850 waa qiime aan sax ahayn laakiinse aase rafa ku sinaya si aan u fahanno kabacdi kaantii shidaalku marka uu shidaalka yimi ee 100 foosto yimaadeen waxa dhacday in qiimaha shidaalku uu kor u kaco kaantii waxay go'aansatay in shidaalkeeduna kor u kacso qiimaha oo ay qiimihii hore loo siinayay qiimo ka badan kaasiiso amaba aan dhahno qiimaha saxda ahaa ee marka hore ay kaasisay 9 shilin kaasisay macal faa'iidadeeda haddii hadhow tole kaalintan shidaalku ay suuqa dib ugu laabato oo istiraahada shidaalkan uu sii dhamaanaya shidaalka lagu soo bedel waxa dhacaysa shidaalka cusub qiimaha lagaga soo iibinaya uu ka duwanaanaya qiimaha aan dhahno marka waxa lagaga soo iibiyey $1,000 inuu kor u kacay $150 $150 haddii maadaama uu kor u kacay oo 100 foosti lagaga soo iibiyey $1,000 tusaale ahaan u dabeetana maalinta ku xigta maalintu soo iibsaday shidaalka loo keenay ku xigta uu dalaalka istaago gebi ahaanba kabacdi qiimihii shidaalku uu hoos u dhaco tusaale ahaan kaalama iibin karo 13,000 ama 14,000 halkii litir sababtaan kaga iibin karin waxa weeyaan qiimaha shidaalka suuqa hoos ayuu ga dhacay kaalmaha caalamka oo dhan hoos ayuu ga dhacay haddii uu adiga kaaga iibiyo qiimaha uu suuqa ka maray qiimo ka sarreeya dan wuxuu sameynaya waa khalad salaajigeed haddii uu qiimaha hoose kaaga iibiyo shalina uu $1,000 fooste ka soo bixiyey maantana 8,500 kaa siiyo khasaare ayay ku sugan tahay kaalinta shidaalku salaajigeed ayaa qiimaha shidaalku uu caalamka oo dhan isugu xiran yahay silsiladaas ama suuqa siradaas caalamka ayaana sirgoysa qiimaha la siinayo shidaalka su-aashu waxay tahay dowladdu ma kantarooli kartaa ama ma xadidi kartaa qiimaha lagu kala iibsanayo shidaalka jawaabtu haa iyo maya labaduba way tahay haa way tahay oo dowladdu waxay xilliyada dowladaha caalamka waxay sameeyaan mararka saliidda amaba shidaalku uu kor u kaco qiimihiisu dowladdu waxay sameeyaan canshuur dhaaf oo ay canshuurta ka dhaafayaan shidaalka waddanka soo geliya kaalmaha shidaalkuna waxay awoodaan lacagtii laga daayey ahayd canshuurta inay iyaguna shidaalka ka jaraan kabacdi consumerska amaba shicibka ka siiyaan qiime ka hooseeya qiimaha ka sii lahayn marka la cashuuro shidaalkan hadday dhahaan dhanka maya waxaana u noqonaysaa waayo dowladuhu ma sargooyaan qiimaha saliidda caalamku ay marayso maraykanka oo kale ama canada ama wadamada xitaa shidaalka soo saara ma sargooyin karaan qiimaha uu shidaalku marayo tusaale ahaan waddanka maraykanka shidaalka qiimihiisu kor ayuu aad iyo aad u kacay waqti xaadirkan ay joogan donald trump waxyaaba fara badan isku dayay hanjabaado fara badan buu diraya ma awoodo in uu qiimaha saliidda sargooyo shidaalka sargooyo oo dhaho intaasaa lagu iibinaya dowlad kasta oo caalamka ka mid ahna waa la mid xitaa haddii tani lagu daro waa la mid su-aasha kale jirta waxa weeyaan tani ma saameynaysaa oo ma keenaysaa sixir barar oo maciishadu kor mu kacaysaa kaasi waa mawduuc kale insha allah iyo mar kale